runtii waxaan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hal door oo si toddobaadle ah aad uga daawataan goobjoog TV xarunta ku leeyahay magaalada Muqdisho. barnaamijkan alaab waxaanu kaga hadalnaa oo aan ku soo qaadanaa shakhsiyaadka aan isleenahay waa hal door bulshada dhexdeeda marka loo fiiriyo qayb kasta oo ay leedahay oo la rajeynayo in markaasi dadku ay wax badan ka faa'iideystaan. toddobaadkan waxaa barnaamijka marti igu ah Sareeyo Guuto Abshir Xaashi Cali oo kamid ah booliska dalka sidoo kalena ka ah shakhsiyadii badbaadisay ama laf dhabartii ka dambeysay badbaadinta kaydka qaranka oo hadda aan ku sugannahay sidoo kalena oo garab fadhiyo Sareeyo Guuto Abshir Xaashi Cali. waxaan jecelahay inaan kugu soo dhaweeyo goobjoog TV sidoo kale barnaamijka hal door waxaan rabaa in wax ka weydiino noloshaada si guud bal taariikhdaada Abshir ahaan Abshir cidda uu yahay iyo marxaladii uu soo maray bal daawadayaasha la wadaag. magacii waxaa la yiraahdaa Generaal Abshir Xaashi Cali Sareeyo Guuto booliiska ka tirsan. waa tahay waxaan horta meel miyiha ku dhashay hawdka Itoobiya dhulka leeyahay hawdka oo wardheer iyo wixii ka sheeya waa tahay 46 iyo 60 ahayd baan qiyaasaya. agoon baan ahaa hooyadii ay soo korisay allah u naxariisto walaalahay oo askartii Talyaaniga halkan ka ahna way jireen. kii ugu weynaa walaalahay ila dhashay jaamac xaashi allah u naxariisto ayaa miyiga iga keenay wuxuu i keenay balcad isagoo booliiska ka ah halkaasuu dugsi iyo iskool iga geeyey waa 58 ahayd baan filaya. kabacdi wuxuu u bedeshay beledweyne hadba asagoo tuula la geenaya anna magaaladiiba iskool iyo dugsi iga daray. lacagtuu qaadanayeyna lacag yar bay ahayd oo markii asaga tuulo loo bedelo carruur badan buu lahay annaga dhib bay ku ahayd kale lacagtaas si loo kala jaro. 63 July 10 yaan askari qorto booliiska ah. jacayl looma qorane dhalinyaradii ila mid ahayd oo waxaan arkay askar la oran jiray waardiye finaaso qoratay oo halka bastoolad ku sito se u labasay hadiyaabiso annaba sidii oo kale aad noqotid daraawiish baa dhibow ka galay beledweyne. dhibowgii markaan ka baxayna dagaalki anoon ka bixinba dagaalkii 64 baan galay. 64 raggii ugu horeeyey oo abaalmarinta loo soo qoray baan kamid ahaa dalcaad anoo dhibow ah. dalcaadii darajo layma siin lacag baa lay siiyey lacagtii dadkii lasoo qoray baa ragna lacag la siiyey ragna darajo la siiyey. markiiba dhibowgii waan ka baxnay dagaalkii joogsaday beledweynaa la ii bedelay beledweynaa layga soo waxaa laga soo diray iskoola boolisiya dugsiga sare booliiska tababar ah shaqada maamulka iyo sharciyada iyo xafiisyada. muddaan ku jiray sanad ku dhow waxaa laygu celiyey beledweyne feerfeer baa lay geeyey 65 bishii 6 iyo haddana waxaa la ii bedelay meesha la yidhaah gabiley iyo hargeysa iyo waqooyigaasaan muddo joogay dablaan ahaa. kabacdi waxaa la ii bedelay isku shuban barigaasaan muddo ka soo shaqeeyey. markii aan hargeysa joogayna maxkamaddan la shaqeynayay marna qolada oobiga qortaan ahaa marna dembi baaraan ahaa. waxaa la ii bedelay isku shuban oo markaa isla oobiista ka ahaa iyo baare. shirkii Africa 74 yaa waxaa lagu talagalay mootooyinka waaweyn oo booliiska rag la baro raggaasaan soo galay
tababarkii markuu noo dhammaadayna shirka africa ka qayb galnay madaxweyneyaashaan wadnay waxaa haddana la ii bedelay hogaanka la taliyaha sharciga la yihahdo taliska booliiska isaga markii dambana 13 sano dabla ah yaa rag ila mid ah yaa la xareeyey oo 2 darajo loo xareynayay imtixaan baan laga qaaday iskoolka muddo ku xareysnaa 2 darajaa soo qaaday labaarifle wax yar ka bacdina dhowr bilood ka bacdina haddana macadka culumta siyaasadda yaa la ii diray waa soo dhammaatay saldhigan afaridood baa lay keenay dembi baare anoo ku jira halka dembi baarihii yaa juulay 1deedii daraawiish la aruuriyey oo maxamed xarbi la oran jiray yaa laygu daray tirarin baad soo gelaysaan baa layihi ood weyno bisha 4teedii la geeyey 1diina xamar baan ka baxnay 4 maalmood baa waxaan ku jirnay god qod iyo god ka bood iyo xabad rid iyo bug iyo bac idaacadahana waxaan ka maqlaynaa amxaaradii baa la laayay dhulkii saasaa la yeelay jabhadihii baa qabsaday ayaan ka maqlayn bisha 9keedii yaa intaas oo kun oo nooc walba ah military boliis asluubta guulwade shicib airbortka waxaa noogu qodbeeyey bilo rafle iyo faarax wacays dhuule oo goli sare ah midna barasaab yahay waxaa la yidhi waa la isqaybiyey waxaad xoreynaysaa dhagax buur maqribki aan ka baxnay meel awaare iyo dhagax buur dhexdeedahan habeenkii cabaar joognay duhurkii dambaan ka dhaqaaqnay baabuurtu uu yaraan dhowr kun malaha waaba yihiin meel 40 kilomitr u jirta dhagax buur oo falfal la yidhaahdo oo geesahana buuraleey ah meesha dhexdaana qurac leh halkii qurac 10 baabuur ba iyo geli karta yaa habeenkii tagnay maalinta bisha 12 aan rabnay inaan dagaalka gallo dagaalku wuxuu ka dhacay 3 meelood annaga waa baaqanay 13 baan dagaalkii gallay waana la soo jabshay maalintaas waxaan xasuustaa 70 anigu aan ku jira dhaawac bay ahayd lug baan ka jabay barida waa i go'day 70 meeshay ku dhibantay 3 taliye horin ee meesha joogtay meesha ku dhinteen waxaa ka mid ahaa nin la oran jiray dabago iyo gabya ahaa inaad maqashay kala maaqaan ku-xigeenkii ururkuna wuxuu ahaa sareelle waa dhaawacmay laakiin taliyihii oo ahaa maxamed kadiib ma dhaawacmin waa fiyooba ninkii qorigiisa la soo baxay baa fiicnaa qoriga rag baa qorigii qaadi waayey waayo waxaa la bilaabay 11 saac baa lugtii la bilaabay la lugeeyey adoo raran 10 saac oo habeennimaan xabadii bilaabanta iyadoo qof walba marqu go-ay daalay xabadii halkaas rag dhufayska ku dhinteenba waana soo jabshay aniga dhaawacii hargeysa lay keenay hargeysa markaan 2 bilood ku jiray baa waxaa lageeyay haddana madaxa baarista dembiyada jigjigaan layga dhigay anoo 2 qori ku socda nalooma sheegin in la qaxayo in la soo cararayo in la soo baxayo galab bisha 3deedii markay ahayd qiyaastii 10 saac yaa magaaladii kacday saakay waqti 3 saacana 80 iyo dhowr nin baa meesha lagu toogtay baanu waaba joogiba subax la tooganayo oo military ah boliis maaha una badan dadkii ka soo goostay dirir dhabacyada ka soo jabay khatarta iigu badnayd waxay ahayd 2 nin oo meesha haysatay waxay ahaayeen ninkii barasaabka ah oo gaashaale booliiska ah taliye qaybna ah
iyo nin golihii saraaha oo cabdirasaaq abubakar waxay ugu yidhaahdeen banaanka nagu sug baabuurkii laan darobarkaahay bay intay alaab ka buuxsiyeen iyagu wateen labadood iyo darawalka shirka galeen xarina ku xidheen war baabuurka ay saaraan idhi waa layga diiday baabuur kale oo buudiga iyo kala go-an yihiin xagga dambe oo nin askari oo qori haystaa uu dadna saaraya dadna u diiday shareeca ku xiran yahay yaa afuula uu ii diiday waxay far haddaa saarta xabaddaa kugu dhufanaya marka meel lagu gabadana ma aha meel lagu gabadana ma aha xaggaa ka soo wareegay waxaan ku tashaday tiimooraha baabuurka inaan labada lugo intaa saaro aan derbigiisa ugu dheganaado waxaan arkay meel u dhaxaysa buudigii iyo shiraacii oo aan qaarka hore la geli karo qaarka dambe la geli karo markaan intii hore la galo iscariiriyeyba meel baa helay mid askari hod shiraacu ku dhegan yahay baa wuxuu igu yiri waa kuma anna intaan qoriga ku garayaan war naga aamus habeenkii o dhan baan soo soconay dhagax buur baa nima subaxii baan ka qoraacanay weliba meeshii baa lagu jiraa mo dhagax buur markaan ka baxnay yaa waxaa naga daba yimid baabuur meershadiis oo boliis wato sida ayaxi loogu dhedhegan yahay korokor baabuurkii hor joojiya waxaa la yihi baabuurkan booliiska askarta waxa ka qaad kii maalintii hore ii diiday markii hore ii diiday baabuurka inaan fuulo in lay dilo inaan ka haro mooyaane si kale booliisku ku raaci maayo baabuurkii buu ka degay isagoo halkii taagan baan ka soo dhogay hargeysaa sidii kusoo galnay 5 cisho kabacdi hargeysaa ka soo baxay xamar baan imid xamar saan u imid sidii baan u joogaa martaliyo saldhig martaliyo madaxa baarista dembiyada hadba meel baan qabanayay waa tahay taariikhdaas guud ee aad kasoo sheekaysay generaal waxaan rabaa marka hore in aan sidoo kale ku weydiiyo bal darajada generaalnimo sida ay kugu soo gashay inaad gaarto iyo marxaladihii wadooyinka aad u martay horta markii ugu horreysay 13 sano dablaan ahaa 2 alif baan koorso ku qaatay markii aan dambe aan tababarkan galay macadka siyaasadana military baa nagu jiray xagga militarygana laga soo dalacsiiyey markaa nin taliyaha ciidanka booliiska ahaa ayaa noo diiday oo yiri military idama dalacsiin karo anoo 2 aliflahan dagaalkii galay soo noqodkii markii lasoo noqday waxaan ku soo noqday 2 darajo kormeer koowaad iyo bilad maara oo goob dagaal aamus military bilada mushaar baan ku qaadan jiray lacag bil kasta hadda waa hayaa waad malanaya sawiradeedaan ku artay ku dhegan meesha kormeero labaad waxaan qaatay 79 iyadoo qof walba la siinayo unba aniga ilaahay dhinac iga siiy 6 sana waxaan ahaa kormeero labaad oo raggii aan iskuma darajada ahayn ay saraakiil noqdeen waxaan haddana galay 6 sano kabacda waxaan galay kuliyaddan dugsiga sare oo booliiska saraakiilnimo waa xidig baan kusoo qaatay haddana tii kale saraakiil la dalacsiinayaan ku qaatay haddana tu kalena haddana saraakiil la dalacsiinayaan la qaatay cabdiqaasim baan marka gaashaalaha qaatay cabdiqaasim kabtanaad kusoo gaartay ya cabdiqaasim kabtanaad kusoo gaartay ha cabdiqaasim baan gaashaanka ku qaatay gaashaalo dhexe iyadoo raggan meesha jooga ee saraakiisha booliisku waa ku yaraayeen raggii hore militarigan laga soo jabay sugudbaa laga soo jabay nin walba booliiska soo aaday nin walbana nin baa dalacsiinayay anigu nina uma tegin ilaahay mooye nin kale ha dalacaad sheekh shariif bixinayey oo u dambeysay ayaan ku soo baxay
afartii sano oo sheekh xasan sheekh halkaa dhowr goorba iigu yimid marka ugu badnaa wuxuu igu yiri ya ummadda kuwa abaal celinaysa oo marka ugu badnaa ilaahay hadda ninkaa buu ii keenay kale oo madaxweynaha khayr allaha siiyo isagaa marka heerka ay soo gaarsiiyey dalacaadda generaalnima isagaa ku gaartay ya generaalka isagaa ku siiyey isagaa siiyo waa tahay kow waxaan galay dhowr goor baan xanuunsaday horta meeshaan waxaan ku jiraa cajaladahan waa kimiko waagii hore raggii ka shaqayn jiray hadda nin baa ka jooga oo la qoryooley caanaa la siin jiray caanana laguma siiyo oo dee waktigeeda iska xun suntaas ay gashay wadnaha layga soo qalay waa lay jeexay hindiyaa tegey lacag badan baa igu baxday ilaahay mooye cidi taageertay ma jirin aniguna ma weydiisan bini aadan waxba ma weydiisan waayo qof walba waan arkayaa haddaan israado haddaad weydiiso ku yidhaahdo maya ku yidhaahdo mayadaa ka xishoonaya intaasoo dhowr goor baa xanuunsaday isbitaal baan galay alxamdulilah hadda way kan waa tahay goormay kuu suuro gashay in aad kusoo biirto wasaaradda warfaafinta oo hadda aad xubin ka tahay horta laba nooc bay ahaydee mar waxaa kor joogay ahaan baan u joogay wixii laba ka horreeyey carta xilligaa cartana iyadoo lagu kala tegay oo baahiyo dadka dishay ya oo kii ka joog ka tegey oo kii idaacadda marna la damiyo marna la shido yo aniga furaha la ii dhiibay sidaasaana ku jooga waad tahay waad mahadsan tahay generaale waxaad warbixin iyana naga siisaa bal kaydkan xilligii la aas-aasay oo irdaha loo furo iyo sidoo kale waxaa ku kaydsan waxyaabaha ay yihiin kaydkaa waxaa la aasaasay 51 heer walba oo soo maray waxaa lagu aasaasay af talyaani talyaani baa marka hore joogay soomaali baa ku darsantay waa saa sheekada haya ugu had waxaa la soo gaaray daakhiligii soomaalidii luqadii baratay iyadoo sidii af talyaanigu u shaqaynayo xornimadii baa la qaatay cajaladaha anigu hadda aan meesha ku arkay 56 way yaalaan waa hayaa dalays baan hayaa xasan sheekh muumin in dhintay asna abwaan ahaa gabay uu tiriya isagoo boora ma joogo 57 waa hayaa oo wadani ah iyaga dhan kabacdi duubistan iyo wanaaggan iyo wixii oo dhanba waxaa aada la isugu duba riday kacaanku markuu dhashay weliba aniga waxaa igu maqaalaa in kacaanku ku dadaalay kaydkan waa igu maqaalo markaanu ma joogin isagaa kacaanka hirgeliyey weliba wasiirana way lahaayeen ma ogtaha fanaaniintuna waa soo bateen sidaasaa marka kaydkaan loo sugay waagi hore wuxuu ahaa layo labada qolo hore maarta ayuu ahaa intaana mardan baa lagu daray iyo kuwa saddexdaa oo xagga burbursan iyagana intaasaan ka ogaa burburkii dowladdii dhexe 1991kii meesha ka baxday kadib marxalado fara badan ayaa sida oo noo sheegtay soo maray kaydkan dowladihii ka dambeeyey 1991kii oo burburkii kadib dhashay kumeel gaar iyo isugu jiray kuwa federaal intaba sidee uga qayb qaateen dayactirka iyo ka warqabka kaydkan hadda aad aduu gacanta ku hayso horta cali mahdi xilliguu joogay xilli yar bay ahayd ha ahaatee waxaa loo shaqaynayay qaabkii xilligii siyaad bare wax dhibano kama jirin waase sheekada ku hayay xilligan dambe caydiidna sugaanna waa ku soo badatay khudbada waa ku soo bateen waa buuxaan
caydiid markii la dhaafay ma soo gelin ninka la yidhaha cabdiqaasim wax ku saabsan kaydka ma soo gelin waa cabdiqaasim cabdilaahi yuusuf laftigiisa way yareyd ya cabdilaahi yuusuf laftigiisa suugaan iyo wax khudbadaha way yareyd khudbadaha iyo suugaantu waxay soo bateen sheekh shariif iyo xasan iyo farmaajo marka waa laba haddana kaydku waa labo waa qeyb telefishinka ah iyo qeyb halkaana qeybta halkan sidii waagii hore casharadaha wax loogu duubi jiray looma duubo ya waagii hore waxaa la keeni jiray casharadaha baa inti wax lagu soo qabtaa naloo soo xareyn jiray ma hadda wax casharadaho inti lasoo duubo naloo keenaa ma jirto telefishinkana isla beri sii horeysay yar baa nala shaqayn jiray oo noo xisaabsanaa isagaa kaydin jiray hadda labadooda wax hadda cusub oo aan kaydinaa ma jirto laakiin waxaan ku dadaalaa intaanan hayno ya sidii aan u hagaajin lahayn oo jiilka dambe maaragtay ula socon lahaayeen cajal googo-an haddaan arko waa bedelaa cajal gubtay haddaan arko haddii ha waa intii tabarteeda waa badbaadinaa saasaan ugu dhex jirno aan u kontaroolaa maalin walba burburkii dowladdii oo 1991kii raadiyuhu miyuu u hakaday oo istaagay mase waa u shaqeynaya xilligaasi ma istaagin maalin ma fadhiisan maalintii wuxuu fadhiistay keliya maalmo la duqeyn jiray ya bes inta kale waa shaqeynayo generaale waxaad ka mid tahay shakhsiyaadkii badbaadiye kaydkan marxalada badanna dabcan la soo maray dowlado fara badanna ay ku duldhasheen isaga oo furihiisa gacanta ku haya waxaabihii kugu layaabka badnaa intii kaydkan aad joogtay oo aad furuha adigu aad hayday aad la kulantay amaad aragtay maxaa ka mid ahaa waqti dhacdooyinku waa fara badan yihiin waa midda anigay soo qabatay oo xabadaha laigu riday bambada la ila baxay ya muxuu ahaa dariishadaha dambe oo idaacadda dhinaceeda ah dab lagu siday intii gaas lagu shubay dab lagu holciyey xaasho laisku daray hanjabaadda dhowr goor noo soo baxaysa oo ahayd haddii aanan ku dilin haddii kale furaha keen ciida iyo gaajana waa iska jirtay generaale kaydkan marka aan joogno aad muddooyin fara badan adigu haydo ilaalintiisa ma waxay ahayd mid adiga kugu dhalatay gama dhalan anoo un socdo un baa laii dhiibanayo joog ya ama iska socda ilaa meel la aado male meel la taga male meel magaaladaas baa la wareegaya hadba meeshii socoto maa la iska tegaya ma ogtahay meeshaas tag baa la yiri furahan waa la yiri laakiin kuguma jirin adiga inaad kayd ka shaqeyn doonto maya inaan bolisii ahaan doonay in kale xataa iguma jirin kuwaas keligood ma aha nimankii shabaab maxkamadaha keliya ma aha kuwa soomaaliya oo kale inay ii yimaadeen oo yidhahdeen waa gubaynaa maxaa la gubayaa waxaan afka soo mari karin waxaa la yihi khudbadihii anaga mooyaan dadkii tegey faqashta khudbadaheedii ya waa gubaynaa waa ka diidaan weliba kuwa maxamed siyaadaan gubaynaa waa af waxa leegu yiri cidda sidaas leh marka ma magac dowladeeda wateen ma soo haye ka yihiin war meesha dowladu ma taal meesha dowladu ma jirin ma ogta ya annaga uma iska joognay waa mid soo galay oo kale oo le waa gubaynaa oo annaga waxaan nahay baan waxba ka dhiganayn oo annaga in aan islahayn nimankan baa wax kaa qaban kara wax kuu diidi kara waxaa jiray in ciidamo shisheeye dalku ay soo galeen oo ay maraykan isugu jireen iyagu saameyn miyay ku yeelatay kaydkan intii aad ku haydo maqalka ama aad ka warhaysay oo inay goobtan yimaadeen ahayd meeshaa kaa koraysa dad socda diyaaradda kusoo riday
kaydkaa waa badbaaday iyadoo sideeda ah ayuu hoos ku soo dhacay. saddex kayd oo luqadaha ajnabiga ah iyo kulli idaacadda meeshaas shiro haddii idaacadda laga sheego inta kale oo dhan waa la wada duleeliyey kulli waa wada 40 iyo dhowr madfac baa ku dhacay 44 marka aad bay ugu yeelatay burburkaas kadib laakiin ma jireen wax lagu waayey oo kaydka ka mid ahaa hadda madax xasuusanaya hadda haddii intaan aan bixiyo cid xasuusanaysaa ma jirto ya waa badweyn jeneraale kaydkan marxalado badan soo maray oo aad adigu usoo dagaalantay oo aad dabcan laf dhabar u ahayd badbaadintiisa hadda xaaladii hore waa laga baxayo hadda dad badan ayaa kala shaqeeya wasaaradii si gaara kaydkan rag dhalinyaro ah irida kula jooga oo kula waardiinaya oo meesha kala shaqeynaya xaalkaaga balse maxaad dareemaysaa nin waxaa jira aan waxbaray yaa ila shaqeeya cabdilaahi bare isagu waxaan waa ka da'wo yihiin waa nin yar laakiin intii uu ila joogay iyo waxaan kala baray dadka ilaa intaa waa duubaynay moogta qof hebel baa la yidhahdaa riwaayadaas heblaa la yidhahdaa heestaas heblaa la yidhaahdaa sanadkaas soo baxay wuu yaqaana aad ba u barta nin kale ee wasaaraddaas jooga intuu yimaado heeska ma soo saari karo hadda waxaad noogu timid annaga kumadidur dul fadhina heese aan ku qiyaasaya ilaa 3,000 oo suugaanta wadaniga ah oo hadda haddii telefishinku qaadanaya iyo haddii idaacaddu qaadanayso soconaya oo aan ka jarnay ama aan ka reebnay wixii aan waxba noo suuragelayn yaan rabnay inaan ka dhigno a b c d adaa imaanaya waxaad leedahay heesta magacaa la yidhahdaa ha heesta hadday eedaan soo saaray eedaan ka soo bixinayna marka ninkaas oo aqoontaa leh oo bartayna waa jooga annagu waa jarjarnaa waxbaan kala saarnaa nin kalea jiro asna la yidhaha xaamid ibrahim ama waxaa la yidhahdaa xaamid ibrahim xaamid oo isaguna sugaanta duuba hal makiinad baa noo taala iyadoo ku duuba annaguna waxaa faafreeb ku samaynaa mb3ga markaa samaynayno wasaaraddan warfaafinta uu kaydkan uu hoos tago shaqaale fara badan ayaa ka shaqeeya rag dhalinyaro ah oo jiil soo koraya u badan iyagu sidee u arkaan kaydkan maxayse tahay fariinta adiga aad u jeedinayso waxay jecel yihiin hadduu jaamici yahay iyo hadduu miyi ka yimid mikrofon waxaa laga yaabaa isagoo wax qorayn akrin inuu mikrofoonka u qabsado ku hadlo rada guro nin suugaan iyo kayd u soo jeegaa maba jira wasaaradda in waana jecel yihiin suugaantii way jecel yihiin ya inay dhegeystaan laakiin nin isla baro ama wax ka qabo ya ma jiro intaas waa ila joogaanaa waa wada joognaa moogta kii shaqo raba oo wasaaradda shaqa laga siiyo mikrofoonku aadaya ma jirto waxaas daawadayaal waxaan intaasi ku hakinaynaa qaybta ugu horeysa ee barnaamijkeena haldoor oo toddobaadkan aanu kaga hadlaynay kaydka qaranka oo furihiisu hayo sareeya guuto abshir xaashi cali sidoo kalena ah jeneraal ka tirsan ciidanka booliska qaybta xigta oo aanu kaga hadli doono caqabadihii ugu badnaa ee uu wajaho kaydkan intii la aasaasay iyo wixii ka dambeeyay ayaad ku daawan doontaan u diyaar garooba qaybtiisa xigta waa anigoo ah dhaqana cumar oo idin leh intaan ku kulmi doono barnaamijkiisa xiga waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo nabaday isma dhaafno